kulanti waxaana wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka hadaan oo kale shanta TV aad ka daawataan qodobada warkeenana waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka yaabiyay Xasan Sheekh Maxamuud kadib dagaal ay galeen saacadihii la soo dhaafay dhanka baraha bulshada iyo madaxweyne Farmaajo oo ku guuleystay ayaan idiin soo gudbin doonaa khilaaf cusub oo ka dhex qarxay agaasimaha nabad sugidda Mahad Salaad iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yuusuf Raage muxuu salka ku ayaad wararkeena ku daawan doontaan ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xamza Cabdi Bare oo shaaca ka qaaday qorshaha uga degsan xukuumaddiisa dib u soo celinta wadahadaladii Soomaaliya iyo Somaliland qodobadaas iyo kuwa kale oo intaasi ka faahfaahsan ayaad warkeena ku maqli doontaan fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar dambaleelkana furo si aad ula socdo wararka iyo warbixinadan halkan soo gelino aynu ku bilowno wararkeena saacadihii la soo dhaafay waxaa dhinaca baraha bulshada aad ugu loolamay taageerayaasha madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud loolanka ayaa wuxuu ka dhashay fariinta ku saabsan arrimaha ay direen mas'uuliyiintaasi oo ku saabsan 26 Juun waxaana muuqatay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo weli taageeradii ugu badneed uu haysta ugana shacbiyad badan yahay madaxweynaha cusub isaga oo kula wadaagay baraha bulshada ee madaxtooyada Soomaaliya iyo kuwa shakhsiga ah ee uu leeyahay dhinaca kale Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shakhsigaas oo dhigay fariin ku saabsan munaasabadda 26 Juun oo ay uu diri jiray markii uu xilka hayay ama uu diri jiray waqtigaas waxaana labada fariimood si weyn u taageero batay fariintii uu soo gudbiyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo fariinta madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo taageerayaasha nabad iyo nolol ay ka falceliyeen ayaa si weyn u niyad jabisay kooxda damaljaduud ee xukunka haysa dhanka kale waxaa la sheegayaa khilaaf cusub oo ka dhex qarxay agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA Mahad Salaad iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yuusuf Raage Mahad Salaad iyo Odawa Yuusuf Raage oo aragti ahaan aad u kala fogaa ayaa la tilmaamay inay khilaafkoodu salka ku hayo arrimo quseeya amniga iyo qalab lagu qabtay garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho intii ay talada haysay dowladii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaasi oo hadda gacanta ugu jira taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yuusuf Raage taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yuusuf Raage oo ka mid ahaa xubnihii aadka ugu dhowaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa weli la sii shaqaynaya dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee ku guuleysatay kursiga madaxtooyada waxaana hadda durbadiiba ay foodaystareen Mahad Salaad oo isaguna ka mid ahaa saaxiibada madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud waana loo magacaabay agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA labadan nin oo markoodii horeba aan isku fiicneen ayaa la sheegay in hadda khilaafku si gaar ah wasalka ugu hayo diyaarado ay mar hore hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA ku qabatay garoonka aadan cad ee magaalada Muqdisho kuwaasi oo markii dambe gacanta u galay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yuusuf Raage diyaaradahani oo markii hay'adda nabad sugiddu ay qabatay ay sheegtay inuu isagu leeyahay xildhibaan Zakariye oo ka tirsanaa baarlamaankii tobnaad ee wadanka ayaa hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waxay sheegtay in diyaaradahani ay yihiin kuwo khatar ku ah amniga dalka una adeegsan karo weerar kala duwan sidaa darteedna aan loogu ogolaan doonin gacanta hay'adaha ammaanka dowladda Soomaaliya hase yeeshee xildhibaan Zakariye oo sheegay inuu aadan cadde ka soo dejiyay diyaaradahaasi waxa uu tilmaamay inuu qorshihiisu ahaa si uu u adeegsado inuu ayaxa iyo cayayaanka beeraha kaga buufsado beerahaas oo uu isagu leeyahay siday sheegeen diyaaradahaasi oo in muddo ah ay gacanta ku haysay hay'adda nabad sugidda Soomaaliya markii ay soo dhawaatay doorashadii madaxweynaha tobnaad ee Soomaaliya oo la qabtay 15 bishii hore ee May waxaa loo wareejiyay dhanka taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maadaama lagu aamini karo gacanta taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yuusuf Raage Mahad Salaad oo hadda loo magacaabay agaasimaha hay'adda nabad sugidda ayaa la sheegay inuu dalbaday in lagu soo wareejiyo diyaaradahaasi kol hore NISA ay ku qabatay airportka aadan cadde ee magaalada Muqdisho laakiinse waxaa arrinkaasi ku gacan saydhay taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yuusuf Raage waxaana halkaasi ka bilowday khilaafka dhaxeeya labadaasi sargaal waxaa dhacay kulan u dhaxeeyay Mahad iyo General Odawa Yuusuf Raage kaasi oo diiradda lagu saaray arrimaha amniga wadanka iyo wada shaqaynta hay'adaha dhanka ciidamada iyo amniga dowladda waxaana isla kulankaasi Mahad Salaad ku codsaday in hay'adda nabad sugidda lagu soo wareejiyo diyaaradaha si la sheegay inay hadda gacanta ugu jiraan taliyaha
ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yuusuf Raage. Hase ahaatee kulankaasi oo looga hadlay waxyaabo fara badan oo quseeya amniga dalka iyo isku xidhnaanshaha laamaha amniga ayaa sheegay in natiijo la'aan kusoo dhammaaday markii dambe gadaal kolkii ay ku kala fogaadeen labada nin arrinka la xidhiidha soo wareejinta diyaaradahaasi lagu qabtay airportka Aadan Cadde lagana soo dhoofiyey wadanka Turkiga, kuwaasi oo aan la garanayn danta uu ka leeyahay in lagu soo wareejiyo Mahad Salaad oo ka mid ahaa dad uga soo horjeeday dowladii hore ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qalalaasana ka waday magaalada Muqdisho. Khilaafka labada mas'uul ayaa hadda banaanka u soo baxay, waxaana suuragal ah in si degdeg ah xilka looga qaado taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yuusuf Raage, maadaama ay Mahad Salaad isu dhowaayeen madaxweynaha xukunka jooga ee Xasan Sheekh Maxamuud, iyadoo la tilmaamay in markii horeba lala sugayay ansixinta ra'iisul wasaaraha cusub iyo inuu soo dhiso xukuumaddiisa. General Odawa Yuusuf Raage ayaa waxa uu ka mid yahay xubnaha la shaqayn jiray dowladii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana dad badani ay sugayeen xilliga ay soo bixi doonto warqadda xilka looga qaadayo laguna bedelayo shakhsi kale hoggaanka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, taasi oo loo sababeynayay in madaxweynihii hore ee Soomaaliya iyo General Odawa ay soo wada shaqayn jireen. Haatana ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ka qayb galay munaasabad lagu xuseeyay 62 sano guuradii kasoo wareegatay markii ay xorriyadda qaateen gobollada waqooyi ee Soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay diyadda wadahadalka Soomaaliya iyo Soomaaliya iyo qorshaha uga degan xukuumaddiisa. Ra'iisul wasaaraha ayaa ugu horreyn shacabka u diray hambalyo ku aadan dhammaan shacabka Soomaaliyeed, waxaana dhammaan shacbiga Soomaaliyeed ugu hambalyeynayaa munaasabadda 26 Juun oo ku beegan 62 guuradii kasoo wareegatay markii gobollada waqooyi xorriyadda ka qaateen gumaystigii Ingiriiska, lamarkaana ugu horreysay ee calankeen laga taagay dhul Soomaaliyeed oo xor ah, ayuu yiri ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. Ra'iisul wasaaraha ayaa xusay in maalintani ay ku weyn tahay taariikh aad u dheer ay tahay, wuxuuna sidoo kale uu xusay halgankii dheeraa ee ummadda Soomaaliyeed u soo gashay madaxbannaanideeda iyo inay noqoto ummad si xor ah ayaheeda uga tashata. Ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay reer waqooyi la'aantood aysan suurtoobeen midnimadii aabbayaashooda ay horseedeen, sida uu hadalka u dhigay. Dadaalkaasi dheer iyo halgankii xornimo doonka ah waxaa xasuusid mudan in walaalaha reer waqooyi kaalin mugle ay ku lahaayeen, waxayna u qubeen dhiigooda, iyaga ayaana si gaar ah u suntan. Waxaan ballan qaadayaa inaan dadaalka ay ku baxsheen xornimada iyo midowgii mid u dhigma aan ku baxsho xalinta tabashadooda inta aan xafiiska joogo, ayuu yiri ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. Sidoo kale ra'iisul wasaaraha oo ka hadlayay xaaladaha xilligani ee dalka ka jira ayaa sheegay in dalkeena ay wajahayaan duruufo adag ay abaaruhu keeneen una dheer yihiin arrimo amni iyo mid dhaqaale oo u baahan in wax laga qabto. Xukuumadaydu waxay ahmiyad gaar ah siin doontaa sidii loo laba jabaari lahaa dadaalada loogu gurmanayo dadka ay abaartu saamaysay, innaga oo ka yeelan doona qorshayaal cadcad oo lagu samayn hayo xal waara iyo in dalka loogu diyaariyo inuu awood u yeesho jawaabidda masiibooyinka qaran. Xamse ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed looga fadhiyo halgankii xornimo doonka ahaa mid la mid ah, taasi oo ah waajibka koowaad qof kasta saaran sidii looga gudbi lahaa kooxaha dalkeena go'doomiye kana hor istaagay gargaarka caalamiga iyo kan gudaha si loo taakuleeyo dadkaasi dhibaatadu ay saamaysay baaruhuna ay ku habsadeen. Dhinaca kale, gudoomiyaha golaha shacabka Aadan Madoobe oo wakiil ka ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Qaranka ayaa ka qayb galay munaasabadda xuska 26 Juun oo ku beegan 62 sano guuradii kasoo wareegatay xilligii gobollada waqooyi ee dalkeena ay xornimada ka qaateen gumaystigii Ingiriiska. Gudoomiyaha ayaana salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Gudoomiye Sheekh Aadan Madoobe oo khudbad dheer soo jeediyey munaasabadda ayaa waxa uu sheegay inay nasiib darro tahay in 62 sano kadib walaalaheena gobollada waqooyi ka maqan yihiin dalka intiisa kale, waxaana khudbadiisa uu ku sheegay inay muhiim tahay in la bilaabo wadahadalka qadiyadaasi. Farxad weyn ayay tahay inaan kasoo qayb galo munaasabad loogu dabaaldegayo 62 sano guura kasoo wareegatay xornimada gobollada waqooyi. 1960kii waxay shacbiga Soomaaliyeed u ahayd maalin weyn, maalin xorriyadeed, maalin farxadeed, maalin
maalintii ugu horeysay ee madax bannaani ay helaan gobollada waqooyi ee dalkeena, islamarkaana calanka buluuga laga taagay geyiga dalkeena. Sidaas darteedna waxaan hambalyo u dirayaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan. Munaasabadan qiimaha weyn leh darteed waa inaan dib u eegno wixii naga xumaaday, gamcahana aan isqabsanno oo aan waqti ku bixinno sidii walaalaha waqooyi dib loogu qancin lahaa Soomaali weyn, midnimo iyo walaalnimo, taasi oo furo u noqon karta dowladnimada Soomaaliya oo si wadajir ah loo hirgeliyo, ayuu sheegay gudoomiyaha golaha shacabka oo gabagabadii munaasabada ka sheegay in maanta loo baahan yahay midnimo aan mar kale ugu soo midoobi karro, taasi oo ka dhigan jamhuuriyad ku dhisan isjeclaysi iyo walaaltinimo, ayuu sheegay gudoomiyaha golaha shacabka. Qodobkaas ayaa warkeena ugu dambeeyay, sidaas iyo nabadgelyo.